wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland oo ay weheliyaan mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera ayaa maanta si wada jir ah xariga uga jaray xarun caafimaad oo laga hirgeliyay xaafadda magaalada ee dhinaca koonfureed ee magaalada Berbera. Munaasabad loo qabtay xariga jarkaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan xaafaddaas oo ay ugu horeeyaan maamulka xaafaddu. waxaana halkaas ugu horeey ka hadlay gudoomiyaha xaafadda magaalada oo isagu si weyn u soo dhaweeyay mashaariicda laga hirgeliyay xaafadooda. nagu ballan qaaday horta sariibadii ma wixii kale iyagoo sanka isku hayay sanadka dabayaaqadiisa soo gaargaareen si la nagu ballamay waxa weey taas daraadeed maantana ta dambe sanadka dambe waxaynu ku darsanaynaa hadhow sidii wagaasimi noo sheegay xogayaha fulinta dawladda hoose ee Berbera Cabdikariim Aadan Siciid iyo sidoo kale duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa sheegay in dawladda hoose ee Berbera ay xaafadaasi ka hirgelisay goob caafimaad waxbarasho iyo sidoo kale adeegyo ay bulshadu u baahnayd. qorshayaasha iyo hawlaha aanu qabanayn in mashaariicda aanu qabanaynaana inay yihiin qorshayaashii iyo baahidii ay idinku la timaadeen taas anaga farxad weyn oo dheeraad ah bay noo tahay in maadaama wixii aynu ka wada hadalnay ee idinku qorshaysana ay qayb ka ahaydeen aanu idin fulinayno oo aanan anagu mashaariican anagu wadano dusheedin kaga keenin waxa kale oo reer magaalada ugu bashaareynayna halkan wuxuu ka sheegay in gudoomiyaha xaafaddu sariibadii oo wili sariibada marka laga reebo waxaan u sheegaynaa afartii mashruuc ee 2018 ku jirtay mashaariicdii aad soo dalbateen afartii mashruuc way idin fuliyaan. farxadda koowaad waxa weeyaan qorshii 2018 xanaanadii inoogu jirtay oo wasiir ku-xigeenkii nagala jari doona xariga iyo gudoomiyaha gobolka iyo wasaaradda caafimaadka dhammaantiin waxay noo tahay inay noo shaqeyso waa farxadda koowaad ee qaybtan magaalo cad oo qayb kamid ah xaafadda Finland inay mar kale isu diyaarinayso halkan u fadhidaan inay adeegyada aasaasiga 2019 ay doortaan. gudoomiyaha gobolka Saaxil injineer Axmed Cismaan Xasan oo isna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay mashaariicdan maanta xariga laga jarayay gaar ahaan xarunta caafimaadka ee xaafadaasi. dadaalkiina baa la rabaa markaan dan inaad sii saacidisaan waxaan baan filayaa hadda MCH-kii xanaanadii ama rugtii caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka lagu daryeelayay iyo cid kasta oo markaa dhibaato soo gaadho ay maanta maxaan ku dhaday xariga laga jarayo. wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland Naasir Cumar Yaro isna halkaasi gabagabadii ka hadlay ayaa sheegay in ay wasaaradda caafimaadka ay ka go'an tahay sidii ay kor ugu qaadi lahayd adeegyada caafimaad ee dalkan Jamhuuriyadda Somaliland. in la dhagax dhigayo mashaariicda wixii ka qabiya inta sanadka ka hadhay iyo in xariga laga jarayo wixii qabsoomay muddadii loogu talagalay. run ahaantii waxaan isleeyahay waa caado iyo dhaqan yaala magaalada Berbera haddii aan isiraaho ku talax tag waxyaabaha maxaa koos gareynaya in mar walba waxyaabo dhaqanada fiican ay ka jiraan magaalada waxa weeye waa isku duubnaanta iyo wada jirka xildhibaanada golaha deegaanka gudoomiyaha gobolka iyo xogayaha fulinta iyo maayarka qaran ahaan model baa jira aynu tijaabinay oo ah haddii adeegyada aasaasiga ee qaranka dawladda dhexe qaranka uga mas'uulka tahay sida biyaha waxbarashada iyo caafimaadka loo dadejiyo golayaasha deegaanka faa'iido intee leeg baa laga dhaxlayaa mashaariicdaas may baaba'ayaan oo khasaarayaan mise waa lagu guuleysanayaa. waxaan isleeyahay taa modelka in lagu guuleystay waxa mara ka cad ka ah mashaariicda ku aada sektarada aan sheegayo ee golaha deegaanka degmada Berbera ay fuliyaan oo ugu horeeya caafimaadku. isagoo sheegay in socdaalkiisana uu yahay socdaal shaqo oo ku mari doono magaalada Berbera iyo sidoo kale degmada Sheekh Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Somaliland Berbera.